kusoo dhawaada barnaamijka ku tusi doono qaabka la iska ilaaliyo in ciwaankaaga laga saaro remembering. haddii aad ka baqayso in ciwaankaaga laga saaro remembering, barnaamijkan waa mid adiga fokuseeya oo aad iyo aad muhiim kugu ah. waxaa taabanaya marka Facebook. barnaamijkan wuxuu aad iyo aad kaaga caawin doonaa in aan qofna ka saari karin remembering ciwaankaaga ilaa hal qof oo adigu ku dirsata maahan. haddii sidoo kale akoon labaad leedahay waxaad isticmaali kartaa akoonkaaga labaad. waxaa taabanaya setting and privacy, kadibna waxaa taabanaya setting, kadib waxaa taabanaya meeshan ay ku qoran tahay personal information, kadibna waxaa taabanaya meeshan ay ku qoran tahay memorization. waxaa hoos ugu qoran decide what happened to your account after you pass away. go'aami markii aad dhimato waxa ku dhacay akoonkaaga. marka inta taaban aniga waa kaas waxaan doorto qofkaan doorto iska remove gareena hadda si aan idin tuso. waxaa taabanaya meeshan ay ku qoran tahay choose legacy. aad taabanaya kadib marka ku dhufatay waxaa taabanaya choose legacy meesha ku qoran tahay, kadibna waxaa taabanaya next. aad taabanaya kadib waxaa dooranaya qofka halka qof oo hadhu xiri kara akoonkaaga. qof kale awood haddii aad qof inta geliso oo qofka doorato qof kale awood uma yeelan doono inuu akoonkaaga xiro. marka ciwaankaan ku dirsana ciwaankan anaa iskale. waxaa taabanaya kadib markuusan kuu soo qabto waxaa taabanaya send message. hadda ciwaankaas qofkaas bis iga xiri karaa Facebook, iga saari karaa remembering. dadka oo haday wax kasta sameeyaan igama saari karaan remembering. waa mahadsantihiin. YouTube subscribe saara, sidoo kale like